madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida injineer Maxamed Shaalay Saaq hoggaanka nabadgelyada deegaanka mudane Mubashir Dibad Raagi iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda deegaanka ayaa warbixin ku saabsan xaaladda ammaanka ee xuduudaha deegaanku la leeyahay Soomaaliya iyo weerarkii argagixisada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka magaalada Goday kula wadaagay odayaal dhaqameedka culimada siyaasiyiinta iyo waliba madaxdii hore deegaanka warbixintaasi kadibna odayaal dhaqameedka waxgaradka iyo xubnihii kale ka soo qayb galay kulankan ayaa goobta ka hadlay saay culimadu inoo sheegtay wax caaqido oo islaam ay ku dagaalamayaan ma jiro innaga deegaanka Soomaalise walaalaheena sida u gumeeyeen baan ayad aragtaa innaga ummadaha kale waan ka naqaan Etoobiyada la sheegay waan ka naqaan caalamka la sheegay waan ka naqaan marka si aynu u naqaano ummad kale oo taqaana ma jirto wuxuu shacabkeenu u kacay rag iyo dumar iyo gabadh iyo wiilba u kacay culimo iyo caamaba aqoontaynu u leenahay way iyaga waxaan u diraynaa xaggan deegaanka Soomaalida meel aad ku noolaan kartaan ma meel aad fikirkiina ka fulin kartaanna ma dad qaadanayaana ma joogo meesha marka dadka yayna ku layni dawlad iyo ciidan iyo shacab wada jira oo afkaartiina aan rabin baa jooga taasaan iyaga u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ee kale waxaan u sheegaynaa kansarka ku dhacay diinta ee cirdigii iyo sharaftii iyo karaamadii Soomaalinimada ah baabiinaya in meel looga soo wada jeedsado cid Soomaali inta u timaado Al-Shabaab ka kaxaynaysa ma jirto sida deegaanka Soomaalida isugu tashaday inay isugu tashadaan oo isku wada tashanno cadowgan iska qabanno iyadana waa baaq kale oo aan dareen midnimada aynu helay in cadowga u midownay waa ognayn xaaladu hadda geeska Afrika maalinba si bay isku bedelayaan inaan xaaladda la soconno in shacabkeenu isu tiirsanaado in midnimadiisa la ilaaliyo ugaas walba iyo sheekh walba iyo cid walba oo wax garada way faranta waxay noo farantahay waa nabadgelyo diinteeniiba nabadgelyadaana inaan ilaashanno fikirkaas hadduu marina soo galo ku joogsanaya ma gooni qolo gooniya dadka dhimanaya la sheegay Hadiya iyo Oromo iyo Soomaali iyo Tanzanian iyo wax walba wiilkaaga iyo gabadhaada islaantaadana uu soo galay tusaalayaal badan oo rag aan saaxiibanahay ugaasyo ah maraanu tagnay Soomaaliya nooga sheekeeyeen xanuunkay leedahay Ilaahay baa garanaya inaad xaaskaagii ooridaadii ka shakido ay leedahay in wiilkaagii curdeed inuu ku dilo ku yiraahdo waa gaal waan kugu janno tagayaabay taa marka in laga wada foojignaado bayna faran kaalinkeennana aan qaadanno awoodeennana aan dhisanno shacabkeennana aan baraarujino innaga waxayna la siman waa inta shacabkiinu baraarugsanaado diiniyan caaqidadeennii oo saxan oo culimadii joogta ay ka hadlaan ku garab gallo wixii intaa ka baxsanna aan la dagaalanno intaasaan faraynaa baraarugii iyo taageeradii iyo garab istaagii shacabka Soomaaliyeed ee deegaankeenu sameeyna hadda uu bilow yahay hal la adkeeyo hal la kordhiyo hal la isgarab taaga ciidanka liyu booliiska iyo ciidamada amniga waxaan cambaaraynaynaa qodobka ugu horeeya argagixisadan khawaarijta ee dibadda dalka dibadiisa naga soo duushay isla markaana ay jooliyadan iyo fikirkan khaldan wadata aad iyo aad baan u cambaaraynaa runtii waxaan ku kalsoonahay inaan qaadanaynin fikirka ay wataan annaga iyo bulshadanada naga hooseysaa midna qodobka labaad waxaan bogaadinaynaa jawaabta laga bixiyey ciidamadanada geesiyiinta iyo dowladda iyo hogaaminta dowladda iyo shacabka on kala harin jawaabta ay ka bixiyeen ee cashirka u dhigeenna waan bogaadinaynaa qodobka saddexaad waxaan iyadana soo dhaweynaynaa si ayna arrintaasi saameyn ugu yeelin shacabka anagu ka salaadiin ahaan iyo ka hogaamin dhaqameed ahaan kaalintii aan ka qaadan lahayn inay tahay inaan hoos u dhaadhicino oo shacabka baraarujino oo dhinac uga wada soo wada istaagno nimankaas argagixisada inaynan deegaankan soo gelin dhaqdhaqaaqna ayna ka samaynin xiidana ayna ka samaysanin saameyna ayna ku yeelanin caqiida ahaanna aana isku caqiidaba ahayn diinna ay wadin taana iyadana mas-uuliyadda waan qaadanaynaa aad baad mahadsantihin waxaan
halkan ka cambaaraynaynaa weerarka gardarrada ah ee dulmiga ah ee calooshood u shaqaysigayaasha ay ku soo qaadeen deegaankeenna sida aad la socotiin ma aha wax khadiyad u raadinayo ma aha wax ummad shacab dantiis raadinayo ma aha calooshood u shaqaysiyaal daleed oo shisheeya aragti ay u fulinayaan ayaa ku socdaan taas marka waa mid dhaawacaysa haddii aan ka mid ka dhaawacaysa xaqa aan is-ilaalinta aan u leenahay waa mid dhaawacaysa midnimada danta dalkeenna uu leeyahay waa mid dhaawacaysa deegaankeenna iyo sharaftiisa sidaa darteed waxaa marka aan cambaaraynaynaa gardarradaasi ayay ku soo duuleen waxaan halkan ugu sharaf celinaynaa insha allah ugu bogaadinaynaa kaalinta libaax ee ay ciidamadu ay ka geysteen iyo shacabka waxaan cambaaraynaynaa ficilkii xumaaya waxshigahaa ee meesha ay ka sameeyeen nimankan intixaariyiinka ee khawaarijta xaqiiqatan nimankaasi diin ma wadaan ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa deegaanka ku nool nimankaasi inaysan diin weydin waa kansar qofka bini'aadamka ku dhaca weeye kansarkaasina intuuna ina soo gaadhin qof kasta oo muslimaha oo deegaanka ku nool hama weynaado haba yaraado nimanka inuu iska ilaaliyo waa qodobka labaad wax guuri ahana inaan laga kiraynin qof aan la garanaynin loona abtirinaynin qodobka saddexaad xafiiska golaha arrimaha islaamka noocyadiisa kala duwan waxaan faraynaa inay dowladda iyo hay-adaha amniga ha la shaqeeyaan cid kasta oo fikradda khaldan watana inay maaragtay ay qabtaan hay-adaha amnigahana garab istaagaan ciidamadana ay la shaqeeyaan xukuumaddana ay garab istaagaan sidaasaan faraynaa kulankaasi mas-uuliyiinta iyo odayaasha kadib golaha nabadda iyo midnimada ee deegaanka soomaalida dheergaradka iyo culimo diinka ayaa warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban ka soo saaray arrinkaasi warmurtiyeedkaasina waxa uu yaallaa sida tan namber 1 waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarka argagixisada al-shabaab ay ku soo qaaday deegaanka namber 2 waxaan bogaadinaynaa jawaabta degdega ah ee hay'adaha ammaanka deegaanku ka bixiyeen isku daygii kooxda argagixisada kaasoo keenay inay ku hungoobaan damacoodii namber 3 waxaan ugu baaqaynaa shacabka iyo dawladdaba inay markaasi kordhiyaan feejignaanta iyo ka hortagga falalka lagu rabo in lagu khalkhalgeliyo amniga iyo xasiloonida deegaanka ayna sii joogteeyaan garab istaagidda hay'adaha amniga ee ay muujiyeen namber 4 waxaan faraynaa muwaadin kasta in ay mas'uuliyadi ka saaran tahay sugidda amniga shacabka deegaanka